wariyahana Djibouti Ramadaan Muuse ayaa xafladan saakay furmaysa ka wareystay gudoomiyaha suxufiyiinta dalalka Afrika ee Saxaraha ka hooseeya Moha Farah Jire oo horkacaysay naadiyada qalinleyda been ee Ethiopia iyo Kenya ee kulanka lagu casuumay. بسم الله الرحمن الرحيم runtii waa munaasabad aad u qurux badan waa munaasabad aad u qaaliya waa munaasabad qeyradeeda iyo tixgelinteeda iyo taariikhdeeda leh waa munaasabad Ilaahay cimrigiisa haraajiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu fidiyay ummadda afka Soomaaliya ku hadasha oo ku dhow 20 milyan qiyaastii waa munaasabad isku keentay shucuub kala fogaatay oo dareen iyo naxli aad u adag oo kala dhaxgalay 20 sano muddo ka badan waa dareen muujinaya in ay ku nool yihiin dalalka Soomaaliya Djibouti Kenya Ethiopia iyo waliba dalalka isku hada badan Soomaaliga ku hadla oo luqadda dadka dhaxayso diinta ka dhaxayso dadnimada ka dhaxayso oo in la isku yimaado wax badan laga wada xaajooday muhiim tahay sida uu ku marti qaaday ama ku maamusay in ku xajooga munaasabadan madaxweynihii Soomaaliya iyo madaxweynihii Somaliland in Cumar Geelle hogaaminaya waa munaasabad aad u qaali ah aqoon-yahano badan baa yimid oo aad u tiro badan abwaaniin baa yimid saxafiyiin baa yimid xitaa aanan Soomaaliya ku hadal baa yimid oo madaxweynihii Kenyan Ben baa noo socday maanta uu yimid dalka Djibouti oo Kenya ka yimid madaxweynihii Ethiopian Ben qorayaasha Ethiopianka iyo Kenyanka baa yimid dad badan oo cadaan ila Belgium ka yimid si munaasabadan Soomaaliga taariikhda uga qayb qaataan Moha in sideed u aragtaa in ma laga yaabaa in la isdhaahdo maanta in af Soomaaligi waa luqadaha loo baqayo amba afka loo baqayo in dabar go'an wallahi dabcan way umad marka ay iyada lafteedu dhismo weydo ay xaq aqoonta baabaado xaqii dalnimadu baabaado xaqii jiritaanka bani aadamku baabaan Soomaalidu qaxootiga qurbo ku noqotay oo way bahooday waanay baholiyowday marka waa laga yaabaa luqadina dabcan way dabar guuraysaa hadii aan la kobcin flowerka oo aan la biyeenin oo aan cadceeda la siinin oo aan la nafaqaynin ma baxayo runtii marka luqaduna saasoo kale ahayd luqad taariikhiye bay ahayd oo runtii ka soo bilaawatay waqtiyo badan ka hor qarniyo badan ka hor qoraalkiisa u baahayd 40 sano ka hor laakiin luqad ahaan dad ku hadlay intaas oo sanadood baynu ahayn intaas oo milyan baynu Soomaali ahaan laakiin haddana dad lumay baa loo arkayaa oo sida uu keenay uu gartay inuu abaabulkeeda iyo qabanqaabada Jamhuuriyadda Djibouti ee macsuumtay taas oo dada oo kala duwan oo ergay runtii waa arin qiimaheeda leh dabargo'ayana ayay ka badbaadinaysaa xukuumadda Jamhuuriyadda Djibouti qaaradda Afrika oo kale mujtamacyo fara badan oo waliba Soomaaliyeed waxa loo geeyay in qaaradda Afrika in gaar ahaan hadaynu soo qaadano in wadamo fara badan ay joogaan waa marka hore Soomaalidu aan deegaanba ku ahayn South Africa Mozambique meelaha marka bal ka waran in sidoo aanka loo dhan karaa markaasi aan afka Soomaaliga runtii Soomaaliga waa luqad ka timid dadka ku hadla luqadda Soomaaliduna waa dadka geniuska baa la yiraahdaa ee ku nool qaaradda Afrika waa dad meel walay galaan dhaqanka iyo dadka iyo jawiga la qabsan karaya waa dad aqoon haday helaan markiiba la oran karo dadka deegaanada u dhashay bay dhaafaan oo ay ka horumariyaan taasi waxay ahayd gudoomiyaha suxufiyiinta dalalka Afrika ee Saxaraha ka hooseeya Moha Farah Jire oo u waramaysay wariyahayaga magaalada Djibouti Ramadaan Muuse waxayna ku hadlaysay xaflad ku saabsan maalinta ama sanad guurada 40aad ee xuska far Soomaaliga oo maanta ka furmaysa magaalada Djibouti halkaad nagala socotaana